midhaha muuska waxa ay ku jira maadooyinka cuntada laga helo dhammaantood fitamiinada iyo macaanka dabiiciga dadka qaarkii waxay aaminsan yihiin in muuska dharay ee aadka u bislaaday uu xumaaday oo aan la cuni karin laakiin arrintu waxay tahay in markasta oo muuska diirkiisa uu sii madoobaado waa marka uu sii bislaanayo markasta oo sii bislaadana waxa ku sii badanaysa maadada ka hortagta cudurka kansarka oo ka mid ah maadooyinka muuska ku jirta iyadoo maadada oo magaceeda loo soo gaabiyo TNF ay la dagaalanto waxyaabaha aan caadiga ahayn ee dhiigga soo raaca iyadoo sidoo kalena awoodsiisa unugyada difaaca jidhka si ay u taageeraan xubnaha jidhka ka mid ah ee dareemaya daalka iyo xanuunada faa'iidooyinka ku jira cunitaanka muusku kuma koobno oo kaliya ka hortagga cudurka kansarka laakiin waxa ay leeyihiin faa'iidooyin kale iyadoo xabadda muuska ahi ka yareynaysa ama ka joojinaysa laabdilaaca xadna u yeelaysa soo noqnoqoshadiisa cunista muusku waxay kaloo hoos u dhigtaa dhiigkarka iyadoo faa'iidana u leh sida jidhku isaga ilaalinayo wadna garaaca saacad ka hor xilliga aad samaynayso ciyaaraha jimicsiga jidhka waxaad sii cuni kartaa midh ama laba midh oo muusa waxaad ka heli doontaa awood dheeraada oo aad ku adkaysato xilliga jimicsiga muuska cunitaankiisu waa shayga ugu wanaagsan ee la dagaalama calool ololka iyo aneemiyada ama dhiig la'aanta dhanka kalena muusku waxa uu hagaajiyaa darajada kulaylka iyo qabowga ee jidhka isagoo xilliga kulaylaha hoos u dhigaya kulaylka jidhka ku jira